Assalaamu calaykum saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal xiiso badan. Si kasto aad u noolaato adduunkan, maalin maalmaha kamid ah waa dhimanaysaa. 100 sano haddii aad gaadho xataa. Daawade, maanta waxaan kula wadaagi doonaa dad ku sigtay in ay geeriyoodaan, laakiin daqiiqado yar ku badbaaday. Marka horese, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan nagu soo biir adigoo subscribe dhaqaya kanaalkeena. Sidoo kale muuqaalkan like saar. Ku soo dhawaw. Waxaan ognahay carruurta in la ilaaliyaa inay tahay arrin aad u culus. Daawo muuqaalkan. Hooyadan waxay ka soo baxaysaa qolka iyadoo gacanta haysa cunugeeda yar. Laakiin cunuga ayaa ka dhaqaaqaya asagoo aadaya dhanka iyo jaranjarada. Nasiib xumo lugta ayaa u sambirixanaysa ama u baxaysa. Hooyada ayaa si fudud ama degdeg ah u qabanaysa cunuga lugta. Haddiisan hooyada aysan ka soo gaar lahayn cunugan, waxaa ku dhici lahaa in uu geeriyoodo ama si uu wax u soo gaaraan. Muuqaalkan waa shaqsi ordaya buundo dusheed, laakiin nasiib wanaag waxa uu go'ay xariggii. Ma ogeyn si fudud ayuu u badbaaday. Halkaani waa buundo dheer oo ku taala waddanka Shiinaha loona tago dalxiis. Ogow, fiidiyowgan wuxuu qabsaday caalamka naxdinta leh. Ka waran qofkan haddii uu ka dhici lahaa buundadan. Buundadan waa buundo aad iyo aad u dheer. Xaqiiq haddii uu ka dhici lahaa nolosha kumay sii jirteen shakhsiga dalxiiska. Caadiyan waxaa la sheegaa aabayaashu inay ku badbaadaan berri ka maalin carruurtooda. Laakiin markaan waxaa dhacday arrin la yaab leh. Aabe gaarigiisa si lama filaan ah u dulmarinaya cunugiisa asagoon ka warhayn. Bal daawo fiidiyowgan. Gaariga cunuga wuxuu ka marayaa qaybta dusha sare. Laakiin haddii ay ku aadi lahayd qaybta bateriga ee gaariga, cunugan nolosha muusan ku sii jireen. Waxa uu ku aaday qaybta caloosha ah ee godan. Ka waran haddii ay ku aadi lahayd cunugan qaybta bateriga ee gaariga. Saacadan ma noolaan lahayn. Dadka qaarkiis shaqada waxay u qabtaan si ka badbadisa oo aad iyo aad u xad dhaaf ah. Daawo, ninkan waa nin kaamirista wuxuu ka duubayaa tartanka gawaarida. Laakiin marnaba muu ku fikirin in dhibaato ay soo gaarto. Laakiin si kadis wuxuu war helaa geerida oo agtiisa timaaday. Halkan muuqaalka laga duubay waa waddanka Holland. Wiilkan yar ee wata baaskiilka wuxuu rabaa in uu jaro wadada tareenka. Laakiin tareen ordaya ayaa ku yimid. Wuu sugay, laakiin maxaa dhacay markii uu tareenka gudbay? Muusan ogeyn wiilka in wadada dhanka kale uu soo socdo tareen kale. Fara si fudud ayuu ku badbaaday asagoo ku sigtay 1 daqiiqo hadduu sii joogi lahaa in uu meesha ku geeriyoodo asaga iyo baaskiilkiisana dusha uu ka maro tareenku. Waxaa jira dad jecel in ay qaadaan sawirro cajiib ah. Waxaa laga yaabaa asxaabtaada qaar ka mid ah in ay yihiin sidaas, jecel yihiin inay qaadaan sawirradaas. Kan waa wiil dhalinyaro oo saaran buur dusheed asagoo codsaday amba dalbaday in sawir laga qaado, laakiin kuma uu qancin. Wuxuu qabtay buurta dhankeeda kale asagoo sida daanyeerkii codsaday in looga qaado sawir, laakiin nasiib xumo dhulka ayuu ku dhacay. Asxaabtiisa waxay u maleeyeen in uu dhintay saaxiibkood, laakiin nasiib wanaag wuxuu ku dhacay dhagax dushiis kaas oo celiyay. Waa 2 gaari oo taraag ah oo isku dhacaya. Laakiin su'aasha ayaa waxay tahay sidoo ku badbaaday darawalka gaarigaas ugana soo degtay meesha asigoo bad qaba. Ma fahmin anigu. Haddaad fahantay, commentiga nagu soo caawi jawaabtiisa. In lagu boodo parachute-ka waa arrin caadi ah. Wax badanna way dhacdaa. Laakiin wiilkan dhalinyarada ah wuxuu sameeyay challenge aan caadi ahayn asagoo buurta fikteeda sare iskula xiray 3 birood. Laakiin nasiib xumo birta kore ayaa waxay bir jilcan amba tabcaana, taas oo keentay markuu sameynayay in ay birtii dhulka la gasho asagoo ka soo dhacay buurta meesha ugu sarreysa dhulkana tagay. Saaxiibadiis waxay u maleynayeen in uu dhintay. Laakiin nasiib wanaag wuxuu xirnay parachute-kiisii ayuuna furtay. Sidaasna wuxuu uga badbaadiyay geeri xaqiiq ahayd in ay dhacdo.